jeedinayaa naafadu meel kastoo joogaanba inay horta arrimahooda khaaska u midoobaan ayna ku dhex milmin ama aynan siyaasadaha iyo waxyaalaha isdiidan inayna gelin oo ay ku midoobaan ururada ayagu ay leeyihiin xuquuqdooda u doodo qodobka labaad ee soo jeedinaya waxa weeye ganacsatada ilaahay xoolaha siiyey ama dadka culimada masaajidiyada iyo maamula meelaha madarisooyinka iyo markasyada dadka ka dhaxeeya waxaan ka codsanayaa ama soo jeedinaya horta ilaahay inay ka baqaan waayo wala weydiinayaa xoolaha waxa loo siiyey dadkan dhalinyarada ee muslimka aan ilxaadka loo qaaday ayagu imtixaan ku yahay ninka guriga 10 dabaqa dhisanaya ama 10 fooqa dhisanaya ee ilaahay xoolaha siiyey ee awoodi waayay ama ku fakari waayay inaan yar ama inaan yar oo naafa oo businesskiisa u baahatay oo waxba ka adeegan karin isaga qiyaamahana loo soo taagayaa adduunkana kaarbaaba ku dhacaysa ana ku sheegay waa xaqiiqo waxaan markaa u soo jeedinayaa dadka ganacsatada ama dadka mas'uuliyiinta culimadu ka mid ka yihiin ee aqoon-yahaniinta meel ummadda muslimka ka dhaxaysa markay dhisayaan ama iyagu khaas u lahaadeen yani ka dhaxaysa markaan leeyahay serviceka dadka dhaxeeya adeega dadka ka dhaxeeya meesha ganacsiga yaa wax ka gadanay hooyada wax ka gadanaysa meesha dad baad u furatay dadka aad u furatay marka waa inay qayb ka mid noqdaan dadka naafada ee kan dhahala iyo kan dhagahala iyo kan lugahala ee ku imanaya waa inuu servicekaaga isticmaali karo wadaadka intuu soo wareegay oo dadka islaamaha lacagto martooda ka soo furtay ee shanta qaarood soo weyday masaajid baan dhisaya ee fooqa intuu dhiso dadka naafadu ayna ku tukan karin aakhir isaga loo cadaabaya waa wax jira dal iyo dibadba uu ka jiraa kuma xisaabtamaan markay meel dhisayaan ummadda Soomaaliyeed dadka isticmaali doona dadka yihiin way garanayaan kuwa badan oo way garanayaan laakiin dambayna kala hayn gurigu qaali ma noqonayo fiiriya gurigu qaali ma noqonayo oo kama qaaliyoobayo yani servicekan waxa u baahan yahay kaliya dabaqa ugu hooseeya hadaad qofka ugu talagasho meel yar oo masaajid haduu yahayna inuu dawil jeerkiisa la soo gali karo haday weyse tahayna uu ku weyseysan karo haday suuli tahayna uu gali karo meel koro hal siyaada xadar inta hoose kaliya servicekiisa ku ekaysi taasna waa ganacsatada qodobkayga ugu dambeeyay waxaan xukuumadaha dawladaha dadka Soomaaliga aan ku hadlay la garanayo ayaga laftoodu waxaan farayaa farintaas kale ilaahay uga baqeen xukunka ay hayaan ku cadaalad sameeyeen ha ka qayb galiyeen dhalinyarada gabdhiyo wiilasha ee naafada ah ee aqoon-yahaniinta ah ee aan awoodi karin inay maaragtay xoog wax kaga raadsadaan xafiisyada oo albaabada ku soo garaacaan oo laga yaabo xitaa ku qabiilkooda ama ugaaska haduu u tago inuu dhawr maxamed qaban kartaa curiyaan baa tahay meel soo madignid waxaan inta sumeeyay meeshaad iska joog ku dhaxaya ka adiga ku matala laga yaabo inuu ama ugaas ku yahay ama adiga wax ku yahay ama siyaasi ku yahay xitaa kuguma soo dhaweynay shaqo ii raadina dhahdo waan ogahay dhaqanka Soomaalida intooda badan waxaan ka codsanayaa marka waliba si gaar ah hadda farinta waxaan maadaama Soomaaliland joogo Hargeysa joogo caawa waxaan horta u mahad celinayaa Axmed Maxamed Silaanyo qaybgelinta uu ka qaybgeliyay dhalinyarada reer Soomaaliland haba yaraadaan laakiin adlisti xasuustay in wasaaradaha shaqo laga siiyo dhalinyarada naafada waan ugu mahad celinayaa waan ugu hambalyeynaya waa madaxweyne yani taariikhda ka gali doona naafada Soomaaliland kuwa ka dambeyn doona ama isagoo haduu ku soo noqdana waxaan rajaynayaa inay si laba laabi doonaan dadkaas hadda lagu shaqaaleeyo oo la sii kordhin doono oo yani marka la xukuumad la dhisayo oo madaxweyne intuu yimaado xukuumad uu dhisayo inuu qorshihiisa ku darsado ummadda xukunta qaybaheeda dumarka buu ku xisaabtamaya waan ognahay Soomaa oo hadda si ordayaan waxa laga yaabaa inay wasiir helaan ama baarlamaan helaan laakiin idinku marka xuquuqdiina aad helaysaan idinku horta in la garanayo way banaanka joogtaan qof aan la garanaynin cidina wax ma siinayso marka meelaha wax lagu qaybsanayo iyo golayaasha siyaasadda iyo meelaha kulamadu ka dhacayaan waa inaad goobjoog ka noqotaan oo xuquuqdiinu muuqato oo TV-yada ka hadashaan oo idaacadaha ka hadashaan oo banaan baxdaan intaasna waxa ka codsanayaa xukuumadda intaasaan ku soo koobi lahaa insha Allah